بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. waxaan bilaabi doonaa koorso cusub oo aan ku sharixi doono sida daatada loo maareeyo loona taxliiliyo annagoo isticmaalayna statistical package-ka loo yaqaano stata. koorsada waxaa soo jeedi doona anigoo ah Aweys Cabdullaahi Xirsi Aweys Timcade. casharka koowaad ee koorsadeena waxyaabaha aan ku baran doono ama markii casharkan uu dhamaado kadib inaan fahamsanahay laga rabo waxaa kamid ah number 1 inaan fahamsanahay stata maxaa loo yaqaanaa maxayse tahay sababta aan u dooranay ama aan u isticmaalayno. number 2 inaan fahmi karno ama kala saari karno versionska statadu ay leedahay. number 3 stata environmentiga ama wejiga hore ee statada ama stata interface-ka sidoo kale inaan si fiican u kala barano. number 4na waxay noo sheegaysaa inaan furi karno ama isla markaasna xiri karno statada. haddii aan u imaano hadafkeena koowaad stata maxaa loo yaqaanaa maxayse tahay sababta aan u isticmaalayno. statadu waxaan leenahay waa statistical package oo dhammaystiran ama statistical software oo dhammaystiran ka oo na siinaya ama noo ogolaanaya wax kasta oon uga baahannahay taxliilinta xogta maareynta xogta isla markaasna noo ogolaanaya inaan kasoo saarno jaantusyo. maxay tahay asbaabaha aan u dooranay. number 1 waxaan leenahay statadu waa mid aad u dhaqsiyo badan isla markaasna xogta kasoo baxda ay aad u saxsan tahay ayna fududahay qofka inuu isticmaalo. dabcan kan ugu dambeeya oo easy to use ah waxaan ula jeednaa qofku markuu stata barto kadib way u fududahay inuu isticmaalo. sababta labaad ee statada aan u isticmaalayno waxaa waaye statadu waa statistical software oo aad u awood badan ka oo ku habboon dhisidda statistical models in statistical model lagu dhiso in lagu saadaaliyo ama predictions lagu sameeyo xogaha lagu saadaaliyo. sidoo kale waxay ku fiican tahay statistical testska dhammaan statistical testska ama tijaabooyinka statisticska ee la sameeyo ayay aad ugu fiican tahay statada. sababta saddexaad statadu waxay ku fiican tahay in xogta lagu maareeyo haddii xogteena aan rabno inaan xog kale ka dhalino ama variables kale aan kasii abuurno ama aan rabno data clean inaan ku sameyno oo data errors badan oo ku jira tusaalaha inaan ka saarno ama si guudba ina data manipulation aan ku sameyno haddaan rabno statadu waa software aad ugu fiican data managementiga. sidoo kale statadu waxay ku fiican tahay waxaa kamid ah inay noo soo saari karto jaantusyo qualitygoodu ay aad u sareyso kuwaas oo loo isticmaali karo publicationska ama researcheska reportska buugaagta waxyaabahaas oo dhan graphics aad u tayo sareeya oo loo isticmaali karo ayaan statada kasoo saari karnaa anagoo isticmaalayna. sidoo kale statada waxyaabaha ay ku fiican tahay waxaa kamid ah statada documentigeeda waa documenti la heli karo ama support ayay statada ku siinaysaa. documentigeeda waa documenti accessible ah oo qofkii raba inuu barto resources fiican ayuu helayaa. sidaa darteed statada waxaa la yidhahdaa waa technical ahaan way taageeraysaa qofkii rabta inuu barto oo statada barto qofkii raba. haddii aan u imaano stata versionska statada waxay u design garaysan tahay ilaa iyo 3 version. 3da version ee statada waxaa loo kala yaqaanaa stata IC stata SE iyo stata MB. stata IC waxaa laga soo gaabiyey intercooled stata stata SE waxaa laga soo gaabiyey special edition stata stata MB na waxaa laga soo gaabiyey multicore ama multiprocessor computer stata. haddaba maxay ku kala duwan yihiin marka 3da stata ee version ee aan sheegno. 3da version waxay ku kala duwan yihiin keliya waxaa waaye size-ka datada ay qaadaan ama datada lagu analyze garay karo mid kasta oo kamid ah 3da version. stata MB-da ayaa ah midda sida ugu dhaqsiyaha badan ku fulisa shaqooyinka ahna midda ugu weyn ama versionka ugu weyn. waxaan leenahay statada ama nooca MB-da versionka MB-da loo yaqaano wuxuu shaqooyinka ku fuliyaa 40% in ka degdegsiyo badan labada version ee statada oo stata SE-da iyo stata IC-da. versionka ugu dambeeya statada hadda la heli karo waa stata 18 laakiin hadda annaga waxaan isticmaalaynaa oo haysanaa stata 17 ayaan haysanaa. sida hore usoo sheegnay 3da version ee statada u kala baxdo versionka ugu ballaaran uguna dhaqsiyaha badan wuxuu ahaa stata MB-da. sida tablekan ka muuqata
meel kasta waxa ugu weyn waxaa waaye stata MB-da. tusaale ahaan haddaan fiirino description-ka number of variableska stata IC-da ay qaado waa 2048 stata SE-da 32,767 ay qaadaa halka stata MB-da ay qaado 120,000 waa ujeediin inay ka weyn tahay labada kale. sidoo kale haddaa fiiriso number of observationska ama daatada inta xog ee lagu kaydin karo ama inta xog ay qaado stata MB-da waa 20 bilyan kuwa kalena waa ujeediin dabcan. maximum number of independent variableska stata MB-da ay qaado waa 65,532 halka kuwa kale oo dhan ay labada kale ay ka yar yihiin. memoryga waxaa ugu weyn waa 4GB waa stata MB halka disk spaceka ay qaadaan ama storageka ay ku fariisanayaan ama disk spacekooda oo isku wada mid halkaas meel kaliya ay isku mid ka yihiin halka inta kale oo dhanna stata MB-da ay weyn tahay. haddii aan u imaano interfaceka ama wejiga hore ee statada waxay ka kooban tahay ilaa iyo 5 window. 5taas window waxay kala yihiin review window ama history window oo kan ugu horeeya ah. kan labaad waxaa loo yaqaanaa results window. kan saddexaad waxaa loo yaqaanaa command window. kan afraad waxaa loo yaqaanaa variables window. kan shanaadna waxaa loo yaqaanaa properties window. aad umahadsantihiin qaybtaas waxaan ku ekeynayaa sharaxaadda theory-ga. haddana waxaan isla arki doonaa stata ayaan toos isula arki doonaa insha allah wejigeeda hore. statada markaan soo furno wejigan ayaa noo soo baxaya ama statada wejigeeda koowaad saan ayuu noogu soo baxayaa. qaybta hadda aan joogno meeshan waxaa loo yaqaanaa command window waa meesha commandiska la geliyo ama commandiska nooca rabtid inaad daatada ku analyze garaynaysid meeshaan ayaa gelinaysaa. meeshaan kale waxaa loo yaqaanaa review window ama history window ayaa loo yaqaanaa waa meesha dhammaan commandiskii aad soo rangaraysay ama aad kusoo shaqaysiisay meesha ay soo galayaan meeshaan waaye. meeshaana waxaa soo galaya ama waxaa loo yaqaanaa results window. meeshaan waxaa kasoo muuqanaya natiijooyinkii ka dhashay rangarayntii aad command soo rangaraysay ama nooca daatadii aad rabtay ama nooca reportkii aad rabtay ama nooca resultkii aad rabtay meeshay kasoo muuqanayeen waa meeshaan. meeshaan kale waxaa loo yaqaanaa ama interface windowgan kale waxaa loo yaqaanaa variables window ayaa loo yaqaanaa. meeshaan waxaa kasoo muuqda variableska aan haysano oo aan daatadeena aan ku haysano meeshaan ayay kasoo muuqanayaan magaca variableskeena iyo isheeg labelskooda meeshaan ay kasoo muuqanayaan. dabcan waa sharxi doonaa si fiican ay u sharxi doonaa hadda empty waaye saa ujeediin waa faaruq waxba kuma jiraan. qaybtan kale waxaa loo yaqaanaa properties window ayaa loo yaqaanaa. tan waxay sheegtaa daatadeena propertieskeeda astaamaheeda how many observations aa haysanaa variableskeena meeqay ka kooban yihiin formatka daatadeena maxaa waaye daatada aan haysano ama file namekeeda maxaa waaye magaca daatadeena ay leedahay maxaa waaye waxyaabahaasay ka sheekaysaa. so si guud waxaan rabaa inaan maanta isla hayno meeshaan waxaa loo yaqaanaa command window inta waxaa loo yaqaanaa review window ama history window inta waxaa loo yaqaanaa results window inta waxaa loo yaqaanaa variables window intana waxaa loo yaqaanaa properties window. sharaxaadeeda si full ah ama dhammaystiran ayaan u sharxi doonaa markaan soo gelino xog aan soo gelino ayaan isla arki doonaa insha allah.